araawana wadoonadii dalku waa qasan yahay war guudahan ku jirnaa san islaaliyoona dadka ka waran dadka waa wareersan yahay tii uu ku jira tii erbirsayro 40 sano ma ku jirayna madaxweynihii maxaa la leeyahay asaga guriga uu xirtay leelgu dhawaa guriga xad la xirey wala nin noo shaqeeyay mid adiga mugaad guriga naga xirayso oo la huba guriga uu xirtay ganjaladaada maad ka adagta beesha caalamkan soo celiyuu leeyahay ka waran beesha caalamku waa soo celisay unuga yana soo celaaniyadayna ya jabo weyse maxaa leedahay madaxweynaha beesha caalamka ka daba wareegna unuga hurtu niyadayna soo celi ra'iisul wasaarihi asagu muxuu yiri maalin wuxuu yiri jidka oo balcadan ba soo celin rabnaa wuro shabaaban ka dhisi karin ma asagii dhahaya sidaas war usugiyana dhahaya fiiri oo dalka inuu sugo xureeyay rabo leeyahay balcadan aan ka soo naqayna hadan dadkooda xureysan maxaa leedahay marka war aniga xureysan ma asaga ra'iisul wasaarihi ah asaga xukuumadda Soomaaliya shacabku waa isxilqaameen oo qawaarijta inay la dagaalamaan ay go'aansadeen laakiin hadduu isxilqaamo in la xoojiyo raba maahane ma lagu fiirsaa asay meel hadii xoogaa nimankaas xanuun ka gaar meelay baaba'ayaan ilaa hadda wax la gaarsiiyay ma jiraan miyaa leeda wala xaygeeyo weysana ma aragno logisticay wada ma aragno wax support moral ma aragno waxaas warmaan wafdiyada la diraayo isla maalinkii soo laabanaya maxaa ka leeda wafdiyaan baxay waa soo galay dalka lagu xureeyo ma dalka alla xureeyo xamaraa buuxdo meelan roogsanaan laanahay madaxweynaha maxaa leeda marka hadda timida waa ku bagnay warno baga banjira naqanin shacabkii Soomaaliyeed ee go'aansaday inay qawaarijta al-shabaab la dagaalamaan ee gobolada dhexe ku noolaa Baaya Boqol ilaa hadda doorkii dawladdu ay lahayd oo la rabay lama hayo haddaysan taasi jirin madaxweynaha ra'iisul wasaaraha maxay madaxtooyada ka dhex qabanayaan ma jiida hore aadaan inta tuutaa xirtaan oo dadka dhiirigelinta u baahan dhiirigeliyaan caasimadda Soomaaliya maxaa laga qabanayaa iyadii wax weey u baahan in wax loo qabtay waxaan leeyahay hadda sidaan ku sii socotaan idinkana madaxtooyada la idinku soo galaa korontada iyo biyaha la idinka jaraya wasaaradda cadaaladdu waa xaq u dir runta inay sheegtay halkan u joogtaa shacabka Soomaaliyeed inay dhiirigelisay halkan u joogtaa madaxdana inay dhiirigelisay halkan u joogtaa waxaan leeyahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare xamse fadhiga ka kaca shacabkii maanta waa kaceen hubkoodii qaateen war idinkuna kaca shacabkuna hadii waayaan cid hor kacda shaydaana hor kacaya xalay waxaan arkayay mid inta soo fariistay dhahaya waxa weeye shacabka Soomaaliyeed cadowga inta hantidoodii iyo guryahoodii iyo xoolahoodii waxa weeye dab qabadsiiyay u kaceen inay iska dul qaadaan waxaan arkayay mid dhahaya maanta hadaan la ogeyn macawisley bariya la ogaa doona dadku hadii waayaan waxa weeye cid wuxuu sheegtay dhiirigelisa hor kacda shaydaan wuxuu sheegaa soo baxay shaydaankaas oo kala imaanay war muwaadiniinta Soomaaliyeed ee hantidoodii iyo dhiigoodii iyo xoolahoodii shabaab banaysteen iyo caruurtoodii ee hubkooda qaatay ee guryahoodii laga gubay ayagoo arkay ayuu waxa uu leeyahay macawisley bariya la ogaa doona waxa weeye dhibkeeda fawdi ku bilaabatay fawdi ku dhamaanaysa wax fawdo ku bilawday iyo wax fawdo ku dhamaanaya ma jirtay dadku waa xaq u dir waa mujaahidiin naftooda u dagaalamayaan noloshiya looga daba yimid dadku inay noolaadaan inaan la ogolayn arkay sababtoo ah xoolihii yarka oo uu haystay guriga uu ka dhistay barkadii uu ka qotay hadii wixii oo dab la qabadsiiyay ee cidlo la soo taajiyay maxaa ka dambeeya maxaa ka horeeya inuu dagaalamo Soomaaliya oo naftiisa u huro waxa yarka hore inta qori kala baxo war wax isbedelaya wax Soomaaliya qaribaya ma jirto Soomaali maanta waa fahamsan tahay qabiil waxa uu yahay Soomaali waa fahamsan tahay burburkii ka bacdi wixii dhacay qof aan ogeyn ma jiro qof dadku aqli waa leeyihiin dawladoodana waa ogyihiin qabiilkoodana waa ogyihiin Allihii abuurtana waa ogyihiin oo waa yaqaanaan dadku hadda la tilmaami maayo waxaan leeyahay dadka meelaha soo farfariisanaya ee waxa weeye shacabka Soomaaliyeed xaq u dirka ee mujaahidiinta waxa weeye doonaya inay haday nool yihiinna sharaf ku noolaadaan hadday dhintaanna inay sharaf ku dhintaan doonaya dadka niyad tabinaya waxa leeyahay media soo fariisanaya waxa weeye war isku xishooda macawdowga dhiirigelinaysan shacabka doonaysan inay niyad tabisaan cadowgana dhiirigelisaan wax loo dul qaadan kara ma madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihi la rabay inay dadkaas oo kala xabsiyada ku tuuraan oo ciqaabaanna ayagii abalala ayaaba dalkii waa qasan ra'iisul wasaarihi iyo madaxweynihii meel lagu ma sheego doorkoodii la rabay inay dardar geliyaan ilaa hadda wax dhaqdhaqaaq ma sameeyaan shacabkiina waxa muuqata inay hubkooda qaateen oo dagaal diyaar u yihiin waxay ku howlgali lahaayeen oo dhameystiranaysa haysan mar hore cadowga iska dul qaadi lahaayeen waxaa leeyahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare xamse maryan maxaa rabtaa cunto ma karis maba karin oo maxaa dhacay maba la jeclee
soo bax nagey sariirta. marwa fertility center waa rumaynta riyadeenna. kuma garan. marwa waa xarunta kaliya ee ka dhabayn karta riyadeenna. afkaaga caano qabow lagu qabay. ballanteenu waa inaan marwo sii marno soona marno inta xaafadda cilada ka jirta ay ka xalismayso. fadhiga ka kaca shacabkii Soomaaliyeed inay dagaalamaan ay diyaar u noqdeen, hubkoodii qaateen, Baay iyo Boqol iyo gobolada dhexe. Soomaalida kalena waa diyaarsan tahay. Soomaalidu waa isku daysataa. waxaa la doonayaa dadka maanta u taagan inay waxa weeye naftooda difaacdaan, waxa weeye noloshooda difaacdaan, dad jira noqdaan, in dawladdu ay garab siiso oo hubka siiso oo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu tuutaa inta soo gashtaan ay hor kacaan. balse haddii madaxweynaha iyo ra'iisul wasaarihii ay waxa weeye meermeereystaan ee madaxtooyada ku ekaadaan oo albaabka soo xirtaan, hadda waxa weeye shacabka Soomaaliyeed yaa u maqan. madaxtooyadu albaabku idin xiran yahay. haddaad doonaysaan inaad shacabka dagaal gelisaan hadhowdiina aad tiraadaan guulaan ka gaarin, taasi shaqayn mayso. haddaadna maanta shacabka Soomaaliyeed ee kacay aan hor kicin, wax walbo dhaqaale aan ku hor qaadin, u fududeynaya in cadawga iska dulqaadaan, waxaa imaanaysa shaydaan hor kacay inuu imaanayo. halkee lagu hiraa in shayaadiin hor kacda imaato? haddaan runta la sheegin beenta la sheegaya. wasaaradda cadaaladdu halkan waxay u joogtaa runta. dalku waa qasan yahay. madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihiina ilaa hadda dhaqdhaqaaq muuqda male. caasimadii qasan, goboladii qasan, cadowga khawaarijta waxa weeye shacabkii markii hubkoodii qaateen way u soo hanjabeen, beelbeelay u waceen, waxay taagan yihiin ka laabta dagaalka riddada qayb ha ka noqonin. haddaad diidaan soo maahan waa idin xasuuqaynaa. awalba maxay ku haysteen hantidoodii iyo xoolahoodii iyo gubeene? maxay ku haysteen awalba? shacabku ha iska daayeen oo dagaalka ka laabteen ma xuma. naxariista shabaab ay ku haysteen maxay ahayd? waxa weeye haddii hantidoodii xoolahoodii la gubay, dadkoodii la afduubtay, waddo aan hayn inay dagaalamaan uma fura. waxaan leeyahay dowladda xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaarihiisa fadhiga ka kaca. shacabka Soomaaliyeed fursadda maanta ay haystaan, ogaanshaha ay ogaadeen dadku in shabaabnimada lala diriiri karo, idinku ha ku noqonina caqabad. waa inay hor kacdaan. haddii ciidankii qaranka Soomaaliyeed inay dagaal aadaan ay u baahan tahay xalana in laga soo amro, shacabka Soomaaliyeed uma baahna in waxa weeye meelna laga soo amro. ayagaaba is amraba, hubkoodana sita. waa in dawladdu ay hor kacdaa. waa in maanta dawladdu ay fursadda ummadda Soomaaliyeed uga faa'iideysaa, ayaduna ay ka faa'iideysataa. haddii kale hadda waxa weeye hadee wax soconaya ma jirto. war annagii saxaafadda madaxa banaanayna waxaan u bareernay inaan khawaarijta al-shabaab 24 saac aan halkan kala dagaalano oo aan miidiyaha shacabka Soomaaliyeed aan ku boorino inay cadawga iska dulqaadaan. annagaa ku dhiiranay. madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihiisa lala ayahaba ayagiiyaa waxa weeye in la raadsho u baahanba. nabadoonnadii waa kuwaana dhahaya albaabku soo xirtay madaxweynihii iyo ra'iisul wasaarihiiba meel laguma sheego. waxaan leeyahay madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo ra'iisul wasaare xamse, shacabka Soomaaliyeed ee maanta hubkooda qaatay ee Baay iyo Boqol ka soo jeeda, ee waxa weeye gobolada dhexe ka soo jeeda, ee qoryahooda sita, ee inay naftooda bixiyaan diyaarka u haddaadna hor kicin waxaa imaanaysa shaydaan hor kacaa inuu soo baxo. sida shayaadiinta waxa weeye hadda miidiyaha soo fariisanayso shacabkii waxa weeye tashuushka ku furaysa ee aaryada. war shabaab waa khawaarij. khawaarijna in lala dagaalamo la laayo diinta islaamkaana faraysa. qofkii ku dhintaa waa ahlu janno, kii ayaga oo la dilaa waa ahlu naar. qofkii ay dilaanna waxa weeye waa ahlu janno. shacabka Soomaaliyeed khawaarijta waa inay la dagaalamaan. khawaarijta tilmaamaheedii dadka masaajiday ku dilaan. sida Cali ay masaajidka ku dileen agtiisa, Cumar ay masaajidka ugu galeen, waxa weeye dadka masaajidda agtooda ku dilaan, meelihii Ilaahay lagu cibaadaysanayo waxa weeye amniga aha. waxaan leeyahay marka shacabka Soomaaliyeed fahma khawaarijta al-shabaab inay iska dhicisaan, afka ka ridisaan. waxa weeye dadka hubka qaatana waxaan leeyahay waxba yaan idin niyadjabin. awalba shalay waxa weeye arigiina isku difaaci jirteen iyo xoolihiina, maantana waxa weeye isku tashta, cadawga iska dulqaada. cadawga muhiimadiinu waa inay cadawga idin dul fadhiya iska dulqaadaan. dawladda haddii ayadu doorkeedii gabtay, idinku ha u joojinina. inta qof idinka nool yahay dagaalama. waa hubaa haddaa waxa weeye la dagaalantaan inaad jabinaysaan. hore u socda. Baay iyo Boqol dadka ka dagaalamaya hore u socda. reer Koonfur Galbeed waxa weeye Hiiraan iyo Galmudug hore u socda, idinkuna dagaalama. cadawga iska dhiciya.
ha u joojinina dowlad federaal iyo midna ha bishaaro waxaan kuugu bishaaraynayaa applicationka Baysi waxa uu ka caawinayaa inaad ehelkaaga lacag u dirto adigoo jooga gurigaaga iyo goobtaada shaqada loo diraha lacagtu waxay ugu dhacaysaa telefoonkiisa gacanta Baysi waxaad ka heli kartaa App Store iyo Play Store